waalidow ma ogtahay carruurta markay yar yihiin la baro mas-uuliyadda iyo kuwan la barin waa kala horumar badan yihiin markay koraan sida ay daraasado badan tilmaamayaan. qodobkaasaan maanta dul fuuli doonaa. fadlan muuqaaladan sa aad u heshaan follow dhaha, like-na dhaha, walaalaha muslimiinta nala sheer garaya. bismillahi walxamdulilah wasallahuma calaa sayidina maxamedin wabacd. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaalkiin horseed daraasado badan oo la soo ururiyey iyo bugaagta ay ka mid yihiin masalan buugga ay qortay Jennifer Miller ee la yiraahdo Responsible Parents and Responsible Kids, ama buugga Julia Cook ee la yiraahdo It's Not My Fault, iyo bugaag badan oo laga qoray carruurta iyo koriinkooda iyo daraasado badan. markaad dhex gasho waxaad arkaysaa waxay keeneen laba kooxood oo carruura. kooxina waa kooxda markay waalidka dhahaan waxaasaan u baahannahay, chocolate baan u baahannahay, waxaanan u baahannahay, hayaa la yidhaa waa la aadaa, waa la soo qaadaa, waa la siiyaa, ama waa la kaxeeyaa, waa loo soo gadaa, waa loo keenaa. kuwana waalidkood waxay ku yidhaahdaan chocolate miyaa rabtaha namari Walmartka geenayaan ama dukaamada, adeegii gurigaa lagu soo sameynaya. haye kan qaad, kaa inaga dhig, kanaa raqiisa, kanaa seel ah, sokortaasuu reerku u baahan yahay, muxuu reerku maanta u baahnaa, maxay naga dhiman hooyo, maxay naga dhiman aabbo. baabuurka iyagaa kusoo riixaya, kaashiyeerka markay yimaadaana iyagaa lacagta bixinaya. maxaa la barayaa? mas-uuliyaddaa la barayaa. gaarigana iyaga alaabta gelinaya, hadhowna guriga marka la yimaado ka dejinaya, kadib baa loo gadayaa waxay rabaan. marka labadaasay marka eegeen koriinkooda, waxay arkeen kuwan in ay ka mustaqbal fiicnaadeen. daraasad muddo socotay ahayd. innaga diinteena markaad eegto runtii qur-aanku midaasu ina baraya. luqmaan markaad eegto subxaana allah, wiilkiisa muxuu barayaa? wuxuu barayaa mas-uuliyadda ka saaran ilaahay subxaana wa tacaala. muunan ku odhan marka hore aabe waalidkaabaana ee ixtiraam ma odhan. wuxuu yidhi yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim. xuquuqda ilaahay iyo mas-uuliyadda ilaahay ka saaran buu baray marka hore. haddana wuxuu barayaa xuquuqda bulshadiisa iyo communitygiisa ka saaran. wa'mur bilmacruufi wanha cani ilmunkar. fiiri wuxuu leeyahay aabe wanaagga qofka mar walba dadka ku booriya ee qayb ka noqo, cod ka mid a codadka wanaagga noqo, bulshadaadana ka reeb mar walba wixii khaldan. wuxuu leeyahay aabba anu mar walba kulama joogo. inaha in takun midqaala xabatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samaawaati aw fi lardi ya'ti biha allah ina allaha latiifun khabiir. macnihii aabba anu mar walba kulama joogo, mas-uul waa inaad noqoto. wuxuu leeyahay haddii xabad beriisa wax la eg oo dembiya aad gasho, ama dhagax hoostiisa ku qari, ama qol mugdi ay isku soo xiro, taleefon iyo wax daadaawo, ilaahay subxaana wa tacaala aakhiro wuu keeni wuuna ku xisaabin. macnihii si kale haddaan idhaa aabba anu waan dhiman karaa, shaqaan aadi karaa, vacation baan aadi karaa, adi iyo rabbigaa laakiin mar walba waad wada joogtaan. middaa ogow. nebi yacquub subxaana allah markuu dhimanayo carruurtiisa u yeerayaa, am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquub almowt id qaala libanihi maa tacbuduuna min bacdi. wuu dhimanayaa, wuxuu leeyahay aabba anu waan dhimanaya, waxaan rabaa inaan ida weydiiyo markaan dhinto maxaad caabudi doontaan? diintiinu maxay noqon doontaa? what will be your religion after I die? qur-aanka iyo daraasadahan dhammaan waxayna barayaan carruurta oo markay yaryihiin mas-uuliyadda la baro, iyagay rabbigood la isku xidho, meeshay aadaanba in ay noqon doonaan dad wax qabsada. laakiin waxay rabaan haddaan afka u gelino, haye aan dhahno, korkorintaa faraha badan caqlina kuma yeeshaan, kartina kuma yeeshaan. allah carruurteena xafido. fadlan muuqaalada sheer garaya. wasali allahuma calaa sayidina maxamed. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.